لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. intaa kadib guddoonka sharafta leh iyo sekretarada goobjooga ah iyo saxaafadda waa idin salaamaya iyo dhowrayaasha iyo xogeyaha guud xogeynkiis. bismillah, waxaan rabay inaan wixii aan dhihi lahaa guddoomiye runtii qodobadii aan ku fikirayo waa la wada sheegay. liban dheer iyo senator dheer iyo senator zamzam ayaa hadda u dambeysay, marka wixii aan rabay inaan weydiiyo xoogooda waa baxeen. hal su-aal ayay hartay oon rabay inaan caddeeyo oo u baahanahay caddeyn ama maxaa ahayd oo waxaa la yidhaahdo soo jeedin oo aan u arko in buugga hadda la soo diyaariyey oo maxaa ahayd oo guddiga ay soo diyaariyeen in aan u arko inuu ka maqan yahay. guddiga si fiican ay usoo diyaariyeen iyo guddoomiyahooda iyo ayaga xubnahoodaba waa u mahadcelinayaa shaqada fiican ay soo qabteen, waana shaqo aada u wanaagsan. midaan rabe waa mid hadda ay sarbeertay ama sarbeeminay dhinac ku furtay maxaa ahayd oo walaashay zamzam. waxaanu ognahay guddiyada doorashooyinkooda sida qaabka ay isku dooranayaan guddoonkooda ama guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xogaayahaba kuma cadda meeshaan uguma soo qorin. haddaanan anigan ilduufin maxaa yeelay aada uma soo akrinaa laga yaabaa oo deg dega ku akriyay kuma cadda. waxaanu ognahay guddoomiye taariikhdana baraysaa in amase baarlamaankii horeba ama baarlamaanka golaha shacabka oo dadkeena soo ahaa guddiyada inay isku doortaan ayaga dhexdooda inay isdoortaan xubnaha ka tirsan markaa guddiga laisku keenay inay doortaan guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye. balse aqalkeeda sare nasiib daro ma dhicin, taas waan ognahay. waxaa lagu saleeyey qaab qabiil. tan horeba 4.5 ayay ku saleysneed iyadoo xubnahana ay dooranayaan. aqalkeeda sare iyadoo arrintii meeshaas joogta saacadda u dambeysay waxaanu xasuusanaa in hal saacid oo ka dhiman tahay doorashadii oo guddiyadii sidii loo kala habeeyey in sheeko kale la keenay oo ahayd qabiil qasax ayaga ha iska soo dhexushaan, quracna ha iska soo dhexushaan, saas oo kale loo dhigay oo markaa mid uu sharciga waafaqsanna aysan ahayn oo jeebka lagala soo baxay sidaan xasuusana taariikh. arrintii waa tii la dabaqay oo muxuu ahayd oo lagu dabaqay qaabkaas oo tashwiish badan oo keenaan ognahay. maxaa yeelay waa qaab qabiil ku salaysan balse aan ku salaysnayn rabitaanka markaas guddiyadii loo kala bixiyey muxuu ahayd markii loo kala qeybiyey. arrintaan u golleeya marka waxay tahay guddoomiye qaabkaas qaldan buu ahaa ani aragtideyda. maxaa yeelay qaab qabiil ku salaysan ayuu ahaa, laakiin qaab rabitaanka guddiyada ku salaysan maysan ahayn. si kasta ha u dhacdo arrintii guddoonka waa laga soo dhameeyey, saas uu ku aqbalay guddoonkeeda noogu shirkeenay ayadoo khalad aan ognahay. baarlamaankiina maxaa ahayto aqalkeena oo arrinta saas ay ku martay. si kastaba ha noqoto arrintaas hadda jirta oo saas u dhacday buuggan hadda kuma qorno wixii qaabkii doorasho haday dhacdo layskugu habeyn lahaa. hadda haddii laga keeno mooshin muxuu ahayto sida hadda ay sheegto walaashay muxuu ahayto ama guddoomiye ama guddoomiye ku-xigeen qaabkii loo waafajin lahaa ama qaabkii la raacin lahaa ma cadda intana kuma qorno. marka waa ficnaan laheyd in la qayaxo bacdamaa ahayd arrintaas arrinaan waafaqsaneyn nidaamyada jira. hadda waa ficnaan laheyd guddigan
inay ku saleeyaan qaab oo haddii ay dhacdo hadda sida la soo jeediyey jiha la raaci karaayo oo qofka lagu dooran karaa ma qabiilkiiba haddana loo tixraacayaa mase doorashada guddiga ayay waafaqsanaanaysaa qaabkay u doortaan iyo cid ay doortaan taas waxaa loo baahan yahay qayaxaad in la qayaxo la caddeeyo ayaa loo baahan yahay guddigan waxaan u maleyn arrintaas inay xoogaa yar ay yani ka ilduufeen maxaa yeelay buugga kuma qorra muxuu ahayto arrimahaas intii kale waa intii la yiri arrintaas kaliya iisoo hortaan raba inaan usoo caddeeyo aada mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi